weligaa waxaad iska ilaalisaa inaad qof kale iska dhigto. ku dadaal inaad adiga ahaato qof shaqaystay oo dadaal badan ku bixiyey halka uu maanta joogo. bal ka waran haddii aad tiraahdo waan isku ka ekaysiinayaa oo aad dadkana uga sheekayso inaad isaga tahay. wiilkan oo u dhashay Turkiga waxa uu iska dhaadhiciyey inuu yahay Cristiano Ronaldo, waxaana uu waqti badan ku bixiyey sidii aan looga garan lahayn isaga. iminka waxa uu ku sugan yahay magaalada Riyadh, wuxuuna mar walba kireystaa kuraasta ugu horeysa garoonka si uu salaanta uga qaado Ronaldo. balse maxaa ku dhacay habeenkii dhaweyd? wiilkani sidii caadada u ahayd waxa uu iska xaadiriyay afafka hore ee taarabuunka. in yar kadibna waxa hortiisa soo maray Ronaldo, isaguna gacanta ayuu u haadiyey. balse Cristiano muu jeclaysan ninkan. mar dambe ayuu soo jeestay, waxaana la maqlay isagii oo leh adigu yimi ekid aniga waad fool xun tahay. inkasta oo uu markii dambe hadalka ka dhigay mid kaftana, balse waa arrin ninka ku noqotay sharaf dhac oo ninkii uu taageerayay weligii ismuu lahayn taas ayaad kala kulmi doontaa. wiilkan oo la yidhaahdo Gökmen ma haye shaqo aan ahayn inuu ninkan isku ekaysiiyo, oo waxaaba la sheegaa inuu lacago fara badan ku sameeyo Ronaldo ayaan u ekahay. bulshadana magac ayuu kaga helay isagii oo qof walbaaba sawir la gala. ogow uma baahnid inaad fiiriso keliya calaamadda jaallaha ah ayaa isku beddelaysa buluug. waa xafaayad ku habboon ilmahaaga kolka uu ciyaarayo, guurguuranayo ama uu hurdo. nashqadda xafaayadda maama waa mid ilaalinaysa maqaarka ilmaha ee jilicsan. waxay u kala baxdaa laba nooc oo kala ah, mid sharoota ah iyo mid buuma ah. si aad u soo dalbato xafaayadda maama, soo wac nambarada shaashadda kaaga muuqda. waalidow ballanteenu waa xafaayadda maama.